qiyaastii aad ku qiyaasto ayaa lagu qiyaasi doonaa xukunkii aad ku xukuntana waa lagu xukumi doonaa sidaas awadeed sida aan jeclahay aniga in la qiyaaso ayaan u qiyaasi doonaa wax kasta iyo sida aan jeclahay in xaq la igu xukumo ayaan dadkan xaq ugu xukumaa sidaas oo kale wixii aan maqlay oo aan arkay ayaan halkaan kaga soo deynayaa mar kale iyo xaaladda barbar maadaama uu yahay walaal aan jecelnahay oo rabna xaaladiisa inaan ula socono tilaabo waxaan kaga hayaa xaalad cusub oo laga yaabo intiina badan inaadna horay u maqlin oo ka soo cusboonaatay xaaladda barbar wax kasta waxaan kordhigi doonaa cadaynteeda ma aha wax aan jeebkeena kala soo baxayna dad badan oo waxaan arkay ka hadlaya arrinka barbar laakiin iska hadlaya balse aniga waxaan idin tusi doonaa muuqaalo codad ka sheekeynaya waxa aan sheegayo shalay waxaan idin sheegay in Omar uu hadaba arrinkiisu yahay arrin la xiriira kufsi adinka balse waa diideen intiina badan waxaad tiraahdeen wuu xanuunsan yahay oo wuu waashay wax saas kale taa horta cadeyn baan maanta wadaa arrimahan aan ku cadeynayo oo aad u badan balse intaana cadeynta u gudbin hadaba qofku sidee u waashaa waalida laba loo kala qaadaa waali soo daahda iyo waali degdeg ah waalida degdega waxyaabaha sababa waxa kamid ah waalida degdega ah inaad hantidaada weydid hal mar in qoyskaaga oo dhan aad weydid hal mar ama ilmahaaga iyo xaaskaaga ama hooyada iyo walaalaha iyo kulli hal mar weydid wax la mid ah saas kale qayb weyn oo kamid ah family-ga hal mar aad weydid oo ku dhufatid ganacsigaaga inaad weydid oo ku dhufatid in wax la dhaho heart break ama qalbi jab jacaylkaaga oo kale hadaad nin tahayna naagta aad jeclayd ay ka tagto hadaad gabar tahayna ninkii aad jeclayd uu ka tago saddexdaas shay ayaa horta main actionka oo keeno waalida degdega oo qofka saaka asagoo dogeed asagoo fiican ama isbuucan asagoo fiican dogeed isbuuc kadib asagoo waalan arki karta waxyaabaha sababa waxyaabahaas weey waxaa jirta marka waaliyo soo daaha jirta waaliyaha soo daaha waxaa kamid ah wax la'aanta in qofku wax la'aan yahay muddo badan fakaro waa waali soo daahda in qofku dhibaatooyin badan ku jiro waa waali soo daahda waali rabaaniyo isaga imaada qofka maskaxiyan u imaada waa waali soo daahda daraagis la isticmaalo waa waali soo daahda waxyaabo badan waxaa jira sababa waalida soo daahda hadda marka xaaladda Omar ma ahan waali soo daahday maaha oo lama leh ninka waxaa lagu ogaa waali soo daahday oo sanadkii hore saas uu ahaa oo sanadkii ku xigay saas uu ahaa oo waali baa lagu ogaa oo daw qaadan jiray oo nin waalan buu ahaa ma leh qof kasta wuxuu aaminsan yahay ama og yahay inuu ahaa nin wanaagsan oo caadi ah oo sida aniga aan ahay ama ka wanaagsan aqligiisu yahay kaba wanaagsan ba maxay yeelay nin wuxuu ahaa fanaan Soomaaliyeed oo caan ah oo heesa badan tiriyo okay marka waali degdega ba weeytiis hadda dabcan sida markii tiina la raaco waay marka waalida degdega waxyaabihi sababayna kuma jiraan qoyskiisa waxa ma gaarin hanti kama lumin naag jacaylkiisa rejects ma siin oo asagaaba waxa ka hadlayna waa gabadhii uu la joogay marka horta ma jiraan sababaha keenaya waalid degdega intaana u gudbin marka waxa aan rabo inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan idin sidaayo videogan marka videogan asaga afkiisa wuxuu ka leeyahay gabar baad ku sabtay baa la dhaxaya lagu xirayaa ilaa biyahayga ayaga haya shahwadii ayaga haya maliyeelaytaas videogan wuxuu yiri biyahaygiiba hayaan marka waxay rabaan inay dhahaan gabar baad kufsatay aadan uga xumaaya barbar waxba kama qaban karno runtii hadii la yiraahdo gabar baad kufsatay biyahaagiina la hayo arrinkaas asaga waxba kama qaban karno aadan uga xumaaya anaga waxba ma ka qaban karno maxaa yeelay barbar wuxuu moodayaa anaga inaan maxkamad fadhino moodayaa dabcan waxaan marunba biyihiin la hayo marunba in la dhihi doono gabar buu kufsado marunba asaga sida aaminsan waa sidaas annagana ma rabno inaan aamino wax qofkiiba uusan aaminsanayn waxa fiican inaan aamino wax qofka aaminsan yahay oo asaga wuxuu aaminsan yahay in lagu soo eedeyn doono kufsi biyihiin la hayo marka kufsiga maana ku riyooday is walaalkeen baa noo sheegay walaalkeen Omar baa noo sheegay haleeleh Omar baa inoo sheegay sida wada maqalnay kufsiga in biyihiin la hayo biyaha adiga is weydii hadaad gabar tahay iyo hadaa wiil tahay biyahaaga sidee lagu heli karaa
biyuhu ma ahan dharkaagoo la qaatay maaha kabahaagiyoo la xaday maahan mobilkaagiyoo la qaatay maaha biyuhu waa wax ku jira qofka jirkiisa sababahay ku imaadaanna waa sababo la yaqaan oo jameec iyo gogolay ku imaadaan marka biyihiisa la qaatay waxa lagu soo eedeyn doonaa ani garan maayo waxa lagu soo eedeyn doonaa inuu gabadhaas ayaan hayd xoog wax uga qaatay waa sida asagu sheegayo marka Soomaalida marka waxay jeceshahay waxaan jirin inay daba ordaan soo ninka saas ma leh soo ma dhahayo biyahaygii haystaan oo waxa lagu soo eedeyn doonaa kufsi iyagu waxay leeyihiin ookiyaal intay gashadaan kaygan ka weyn iyo waxay leeyihiin maya Omar wiil wanaagsan buu ahaa meesha uu isaga jiraa uu isaga xiran yahay waa dad uusan indhahooduna aysan arkin xaqiiqada maskaxdooduna aysan xaqiiqada ka fikiri karin iyaguna aan xaqiiqada isu sheegi karin oo runta isu sheegi karin soo garatay ma asagii la taagan in lagu soo eedeyn doono maxkamad uu imaan doono eeduna ay tahay kufsi asagii sheegay la soo taagan adinku waxaan rabtaa inaad qarisaan marka dhibaatada jirta meesha dhihi laydeen arrinkaas jirta ma seen wiilkaas seen u caawin karnaa ma lawyer baan ka caawin karnaa ma talaan siin karnaa xitaa asaga haddii ku dhacay dabinkan bulshada inteedii kale see looga badbaa dhibaatada jirta waxay tahay maalinkaas dhibaato way dhacdaa laakiin dhibaatadii runta lagama sheego haddii dhibaatooyinka runta laga sheegi lahaa oo la isu sheegi lahaa oo la isku baraarujin lahaa dadka dambe kuma dhaceen waxaan hubaa hadda haddii xaqiiqooyinka markasta aynu isu sheegno in barbartan aysan ku dhici lahayn hadda ku dhacday oo hadda uu la dhibaataysan yahay kuma aysan dhici lahayn maxaa yeelay wuxuu heli lahaa talooyin iyo fikrado uu kaga badbaado laakiin wax kasta waxaan ka dhignay meel dadku ay ku wada baaba'ayaan aan waxaan u marinaynaa range baan marinaynaa waa u qurxinaynaa jidka waxaan leenahay waa nadiif maxaa yeelay haddaan diidno inaan sheegno wixii qofka aan ka maqalnay oo aan idhaahno may lama sheegi karo ama wixii qof ku dhacay marka de kuwa dambe aan rabaa iyagana inay ku hoobtaan oo ku dhacaan arrinkan haddii sidii yahay looga sheekeeyo xitaa gabdhaha Soomaaliyeed waxay noqonaysaa waxay ogaanayaan consequences haddii hadda dad badan waxay yiraahdeen way nabatay gabadha ayadaaba ogolaatay dabcan oo saaxiib lahayd oo u yeeratay balse way ku keento way nabat xitaa arrinkan markii la dhex galo oo laga sheekeeyo gabadhii wiil balansata waxay ogaanaysaa in arrinkan uu yahay in loo baahan yahay mas'uuliyad weyn inay gabadhu qaadato arrinkan aysan ahayn arrin kaftan ah ee uu yahay arrin ay tahay qiimo weyn ku kacaya soo marka dadka xitaa is aaminay oo isu tagay waxay ka fikirayaan sidii ay xaaladooda private-ka iyaga ugu ekaan lahayd aysan dadka ula sheer galeen laakiin wixii haddii hal amsolno oo balaaya dhacdo oo qofkii victim-ka ahaa dhibaatada ku dhacday keligiis ay ku ekaato maalin kasta dad aan waxba galabsan baa waxay noqonayaan dambiilayaal noqonaya dadku dambigana dadku wuxuu noqonayaa si rasmi oo caadi ah u noqonaya halkan waxaan kala hadlayaa dad badan baa waxay ga soo codsadeen in aan ka soo hadlo maadaama ballan aan qaado oo qofka haddaad rabtaan calaamadda saddex geeska iyo isha iyo maansooniyad iyo waxaan dadka Soomaaliyeed lagu weerariyay dad baa inta waxyaabahaas ku noolaaday oo lacag ku helay oo fiisiyaal ku helay oo ku noolaaday yaa markii la weydiiyana waxay u sheegayaan waxaan jirin hadda koran waxaan dhageystay waagan ciyaalka ahaa dawaco iyo abtiyaasheed oo waraabayaal ahaa dawaca waxay baratay guriga maroodiga inay inta gasho wax ka soo cunto marka dawacadii way buuratay way qurux badnaatay abtigeed oo dhurwa ah yar abtiga xageed wax ka cunta adiga marka wuxuu ahaa abti bambaan oo abti koro ahaa abti koraad bay dhanay abti koraad buu ahaa marka abti koraadka dawacadu ma aysan rabin inay runta u sheegto waxay tiri abtiyow geedkaas ayaan madaxa ku dhuftay dhowr jeer hilib baan ka helaa markaan 2 jeer madaxa ku dhufto waraabi runu moodo geedkii baa hardi ku dhufto markaas wuxuu ka helay markuu geedka madaxa ku dhuftay wuu dhintay waxa ka meelin wuu dhintay maxaa yeelay geed madaxa ku dhuftay waa dhimanay wuu dhintay abtiga rasmiga ah baa u imaaday marka sir abtiga waad qurux badnaatay maxaad ku nooshay sheeg markaas waxay tiri abti maroodiga aan raacay gurigiisa markuu ka soo baxaan u doobo maraa waxbaan ka soo cunaa marka nimankan ku noolaaday arrinkan maansooniyada ama arrinka saddex xagalka iyo ishay waxyaabahaas markii la weydiiyo waxba idin sheegaan aan waxba ka jirin wax ka jira oo si jirin ay idin sheegaan ana abtingin rasmi ah ana idin sheegayo runta qofkii danaynayo inuu ku biiro qofkii danaynayo inuu raadiyo qofkii danaynayo inuu maaragtay inuu wax ka helo qofkii danaynayo inuu si kaleba si ahaanba u bartaba u ogaadaba oo macnaha waxaan dadka lagu weerariyay waxay yihiin
qofkii rabo inuu ogaado waxaasoo dhan video ku xiga ayaan kaga soo hadli doonaa runtii sida ugu macquulsan ayaan uga soo hadli doonaa haddaad jeceshahay waad raadin kartaa markaas haddaad jeclayna dee ma raadinaysid haddii aad noqonna waad ogaanaysaa laakiin waxa la idin sheegay ilaa iyo hadda waa dawacadii dhurwaaga u sheegtay beenta oo kale dadka noocaasana waxay diidayaan laba arrin inaad ka faa'iidaysatidna way diidayaan kow in dabcan dee loo qabsado loo warsaas maxaa u samaysay na way diidayaan laakiin qof kasta oo dadka ka hadlaya mid aan ku riyoon inuu wax ka helo male ama kuwa badan oo ka helaan ayay Soomaalida waxaan ognahay hadii interestiga jecel waa hadii wax ay heli karaan meel keli karaan waxay doonaan baxa ahaadaan way raadiyaan hadii ay awood heli karaan waxay doonaan ahaadaan way raadiyaan haddana bulshada way ka qariyaan oo waxay diidayaan bulshada reaction-kooda in macnaha lagu dhaleeceeyo in la yiraahdo maxaa u samaysan marka haddaad jeceshihiin aniga ballan ka qaadaya berri ma ahan aniga ballan ka qaadaya video ku xiga inaan macluumaad diyaarsan aan kaga soo diyaariyo oo aadna mar dambe u baahan doonin inaad wax ka ogaataan marka haddii aad YouTube channel-kayga ku cusubtahay fadlan subscribe saar hadday tahay markii ugu horeysay subscribe saar saas oo kale Facebook page-kaygana follow soo dheh aad mahadsantahay